بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين ملو بعد دنيا جوجتان وانيغو كينغاليو صاحبكيغا حركينو maanta waxaa wadnaa barnaamij ku saabsan Maxamed Bikey ninkaas waa nin la yaqaano caan ah fanaan ah waxaan wadaa wareys asla wareysanayo sidoo shalay dhahay iyo maanta wuxuu dhahay iyo shalay wuxuu dhahay mislaha waayo hadda video si guud galayna okay waan jeclahay kulanti wanaagsan oo waxaan meel kasta oo naga daawanaysaan kula soo dhawaad haddana Bikey wuxuu isku wadaa siyaasad iyo fanaannimo siyaasadda hadana qaabka loo dhaqmayo ma ka saayo waa fanaannimadiisna waxaas inuu geesto maaha haddana wuxuu ku leeyahay raalgelina ka bixina camaamada ali u tuuro marka hore ma qabsanayaan koodib camaamadu ay u tuurtana haddana ali u tuuro leeyahay marka Bikey wallahi bilaa bin aadam waa khaldami karaa khalad oo gali karaa khalad hal ma laba ma aan aragtay marka hore wuxuu dhahay Muqdisho ay ga maqnaato haddana Muqdisho I love you dhahay haddana Muqdisho I love you haddana Muqdisho saas waa asiga kale horta kaas ma aqaano waa cunug iska yar haddana dhuucil ah waxa ku tilmaam ma aqaano laakiin Soomaali iyo Somaliland waa hal oo kaliya dadkeena waa dadkeena Soomaali waa Soomaali Muslim waa Muslim hal luqada ku hadalna hal diin asla wadana hal diin adi wax badan waa okay gulgadayna wuxuu sheegayo iyo wuxuu ka galeynaa fiidiyoga iyo wuxuu ku hadlayo iyo wareysiga qaabkoo noqon doono insha Allah warjeynina kulanti wanaagsan oo waxaan meel kasta oo naga daawanaysaan kula soo dhawaada wareysigan aadka u kooban oo aan ku wareysanayno fanaanka caanka ee Maxamed Bikey oo garabkayga fadhiya wareysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore oo Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale oo fasireen qaarna ay aad uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedayn iyo colaad iyo dadkii Soomaaliyeed ee waayo hawaarkaasi colaadkaas asags baday maanta dii wax fiican ku hadli lahaa hadalkiisa tamaam ahaa lahaa saacadan xilligan Soomaali saam dhihilaan dadkii way xanaaqeen oo kaliya hadda maxaa dad badan oo baasha u xirnaa Somaliland hataa dad oo tariiqana arkay hataa oo mas'uuli aan dad waxa arkata maqasu qaatay ee goynaya dadku istaagana arkay waa colaad asaakas badan ma hano laakiin simple meel maslax marka istaagay hadafka inuu hadal meel nidaam dad intaas bulsho inta taajirku hada qurux badan ka baxaa fiican laakiin Soomaali hadana ictiraaf weey Soomaali saansi ka hadana nin weyn waay bismillah wax laga sheekar malaha waayo hada qof cabsan waa nin cabsan ku adeeyo soo qaad malaha nin cabsan ma lahi kare wallahi arjada in la iska hor keeno waxaan weydiinaa Maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba iyo waxa uu qorsheysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baa jiraya Maxamed soo dhaw TV Universal marka abdi xafidaad baad u mahadsan tahay Allah ku asmo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay daawanayana aad baan u salaamayaa waxaan cod dheer tacsi ugu diraya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore gaarnay caadi waa binaadamku oo khaldami karaa khalad oo gali karaa hadda ninkan nin weyn waa isoo garto Soomaa raalgelina ka soo bixinaa oo dhahay TV weyn oo soo fadhiistay caan la yaqaano waayo hadda ma dhihi karno ninkan nin xun waay hadda khaladkiisa oo soo laabtay ninka waxa ugu fiican nin khalad galay khaladkiisna sheeganayo ilaahay dhibta inaga kor qaado amiin sida horta waan direeyaa mar labaadka si xun wuxuu sheeg sixir wuu ka daray sax waa dad munaafiqshiday muumin ba ku gubta anigu hadal wanaagsan wuxuu sheeg sixir wuu ka daray sax dad munaafiqshiday muumin ba ku gubta anigu hadal wanaagsan oo tacsiye baan diray dabadna dad ba ka faa'iideysto xaq kale ka rugay waxaan taageerayaashayda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay idinkana waan ogahay inay jeceshiin hada dad qaar waxay isleeyihiin Bikey lagu jooli waaye macnaha ninkan horta TV oo imaaday raalgelin oo ka bixiyay
khaladkiisa waa qirtay maanta waxaa fiican inaan iska cafiyo bis anaga hadda Soomaali nahay nafla gooya laga samro hadda hadal ninka afkiisa waa ka baxa hadda khalad waa dhacay haddana afkiisa wuxuu ku leeyahay Soomaali taageerahayga dadka dhan Soomaali meel walba dunida ku joogtiin waa idin jecelahay oo idin leeyahay marka ninkan hadda xumaanta ka soo noqday anagana waa si wanaajinayna waa ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waa ka raali gelinayaa muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba maxamed tacsibaad wuxuu dhahay muqdisho xaal baan siinayaa xaalka muxuu noqon doonaa wuxuu noqon doonaa sigeena wuxuu sheegi doonaa dartay dabcan waad ka daqnatay iminkana waa adiga sheegay amiin horena waad sheegtay xalina waa adiga sheegay dhibaatadii ka dhacday muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatada soo gaartay inaad ka tacsiin saadna ka cuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhaxwadi miyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan hadda waxaa la dhahay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhaxwadi maarta ama ina labadoodba hal ku toostid macnaha hadda wuxuu sheegaa fiirnayna Soomaali asaa marqa wuxuu sheegay arkiina taageerayaasha bulshada isaga hor imaan cabdi xaafid aad baad u mahadsantahay adiga iyo Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka siyaasaddu biikahan waa iska kay murgeen laakiin waa kala saaraya anigu fanaan Soomaaliyeed baan kala saara oo dhaha muraayada gariina sitaan iska saaraya fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tagaya socdaalkayga Yurub markaan dhameeyo UK aan dhameeyo ilaa Muqdisho waan tagaya labadayda show ee ugu horeeyana waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho qoysaskoodii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaaha u naxariisto dadka dhintay Soomaaliyeed inta dhaawacna la caafiyo ilaa caafiyo waayo waxa ku dhintay arday wax baranayso maanta dunidan dad badan jiraan cilmi leh aqoon leh waayo hadda anigu waxa isku baabiinayna ma aqaano waxa isku qarxineen waxa isku dagaaleyno ilaa hadda ma sheegi karno waayo Soomaaliya nahay Soomaalinimadii meel xun naga gashay marka dad waxaan ugu jira dad xun dad wanaagsan dad fiican kullu isku dhex jirnaa niman raaxa niman rafaad mirna leh raaxa markay soo anaga dibka ku jirna ultima anaga mar sargaar doona dawladda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha naxariisto Soomaali waa jecel man nabi sixin wuxuu sheeg sixir uu ka daran yahay qof baad kaligii dadkaba adigu daacadaad u tahay inta uu dadaalaysa daryeelkiisa iyo naftiisa sidoo u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd hawliga ugu daashay ficil inta isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibid laabiyada marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo YouTuber sida wax xaganayad helaysaa belsi journal wax si khaldan loo gelinayaa arkaysaa laakiin qof la hadlaya waa qofkii jiray wallahi horta qof YouTuber haduu yahay fanaan haduu yahay maanta doo wax xun sameeyo idaas wax xun haduu sameeyo waa la dhahaa wax xun uu sameeyo ninkan saan uu sameeyo qof wanaagsan laakiin qof maanta wanaagsan hala qabsadaba wanaagiisa bismeel oo kumaro Soomaaliya laakiin aad hadda Soomaali dhana wax ka sheegtay waayo dadka ku xanaaqeen shacabka Soomaaliya ku xanaaqeen teeda kale ninkan no marmar hadalkiisa taa khawaafa gale hadal way ku fiican doo afka ku jiro haduu hal mar banaanka soo baxo war maanta di aad wanaagsan tahay waa wanaagsan tahay hadaa xuntaan waa xuntaa hadaa xunta erexon sheegtay maanta walu ninkaas erexon walu hadii wax fiican sheegto walu amaana hadaa wax xun alimaadana maanta lagu faanzina صح بيكي ما قشع ملينا هذا بيكي هذا وقت ولكن هرت واخل دونته خلد شيء زائد ولبو oo okay muqdisho waxa dhahday xabur burto waa ku faraxsanahay dadkiisa hal diin dadkiisa hal diin isla qabnaa oo Soomaaliya isla nahay hal luqada ku hadlana war hal cunta cunna bariisa cunna basta cunta basta sinjiida cunna waa ka wada عليه بلا dadka no bila video in badan baan habaariyo waxa arkay social media ma isticmaalo laakiin uurka iga duceeya ee habaar okay uurka ka duceynayna waayo waxaan ku duceynayna nin wanaagsan inaan naqato haddana
dadka xishmeeyo dadka waaweyn waayo Soomaaliya dib dambina wax ku sheegin oo kugu duceynaa waayo aan Soomaali ahay adin Soomaaliya tahay hal luqada ku wadaan diina isla wadaan sax waa ducooyin bedela inta la sii noolaanayaaba waa muddo anigu mar walba fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel kasta Soomaaliyan laba ballan waxaan ku qaaday in labadeeda adilto ninkan ballan oo qaaday wuxuu dhahay Soomaali meel Soomaali ah oo dhahay ballan waxa ku qaado dhahay labadeeda lug macnaha labadeeda adimo lugo dhahay waa ku tagaa insha Allah waa ka rajaynaynaa walaalkeeni aku arki doonaa isbedel adogadaasha ma ilmisheekana ay uga caroodeen hadalkaagii siyaabo kala duwan baa loo fasiray bulshadii Soomaaliyeed oo aan ishaysan baa dhibaato ay dhaxtaala fursad waxaan ku siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya Soomaaliyeed oo aan ishaysan baa dhibaato ay dhaxtaala fursad waxaan ku siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya malaayiinta fanaanka u tahay ninka Soomaaliyeed u tahay inaad ka raali gelisid wixii dhacay soo dhow Cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo Universal Adnaan oo kabarday naga duubayo nin qaali ah barasaab iyo Cabdiwaasac oo niman qaali ah oo showgii muhiimka ugu horeeyay gilaha oo nala fadhiya dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa inuu weyn cimaamad ka dhacda cimaamad ka dhacda dadka marmar oo kafta ma marmarna ma qadar aan liga tuurtay ismootin kara igu tuurade cimaamad waa igu tuurteene igu tuur cimaamad waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambe macnaha marka hore cimaamada igu tuurtay waxa ka wadaa la dhahay BK nin xunaa tahay saan waay adi dad badan soo dheen Soomaaliya waayo anaga hadda BK waxa u fahanay inuu khalad galay khalad horta oo galay waa ka soo laabtada waayo hadda cimaamada u tuuray taagantaa baash aku tuurnay kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado waan idinka raali gelinayaa I love Muqdisho xalna waa siinay tobiitan wari gorno dhaamad qaana Muqdisho ma qanaato hadana isbedel farqi waxa u dhaxeeyay binaadamka hadal isku mid ma aha laay waaki horta maxaa la dhahay horta ninkan aan horta qosol ugu dilaa marmar qaar waayo hadda hadaladiisa hadda fiican loo fiiriyo horta hadaladiisa waa bisaxay horta halaan waa saxay laakiin qeybaha dambe wax saxan ma aha waayo qalad oo galay hadda wuxuu leeyahay I love Muqdisho marka hore waa Muqdisho maqnaat inta kale isa waraayb waayo Muqdisho maqnaa karto waa caasimad waa meel weyn aad u qurux badan hadana dad far badan ku nool Muqdisho ku maqnaane caasimad dhan waa hadana I love leedahay intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa hadii la yiraahdo waraysigan aadka u kooban ummadda Soomaaliyeed qof aan khaldamin ma jiro maxamed waa maqlaysaan raali kama iibu yiri wixii dhacay waa ka xumahay ilaahay baan khaldaminin shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha isdugsanaya colaad iyo dhibaatooyin la dhaxligin okay ninkan hadda raalgelin Muqdisho ka bixiyay waayo hadda qofka bini'aadanka khalad oo galaa sax khalad walba ahaad oo galaa khalad ilaahay bisa galin waayo hadda ninkan waxaa leenahay malaha walaalkeena aad tahay soo dhawow anaga khaas ahaanteena Soomaaliya ku jecelna abadana ku jecelna qof walba xasuus uu leeyahay waayo hadda anaga waa ku cafini horta Soomaali ahaan dusha ma saari karni laakiin khaladka waa akhirate qofku waxa ugu fiican khalad gal hadana ka soo baxo okay walaalkeena cafisa naga tahay hadda kadib afka ka baxay wax qurux badan oo ahayd aad wax qurux badan sameey adina wax qurux badan helay laakiin wax khaldan dasmaysid khalad la sameeyna okay hada barnaamijkeena inta ku soo afbeerayna intaana ku soo gogoynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو كان هذا كشيء سبسكرايب لايك شير كل سودوا سومالي وصومالي وان لايف سومالي